daawade soo dhawow iyo muuqaal kale iyo Bello Media. Muuqaalkayga maanta waxaan ku qadar dhigaynaa shanta dabeecadood ee gabadhu ku nici karto ninka. dabeecad ahaan ninka iyo gabadha mid kasta waxa uu jecel yahay in ruuxa uu nolosha la wadaagayo uu lahaado ama yeesho tilmaamaha qof bini'aadamihi lagu ammaani karo iyo wax kasta oo markaasi wanaagsan oo xiriirkooda waarin kara. inkastoo ay hubaal tahay in sawirka uu qofka niyadda ku hayo guurka hortii ee uu jecel yahay in mataankiisa u ekaado inta badan u dhow yahay mid aan suurtagal ahayn aakhirkana uu ku qasbanaado inuu aqbalo ceebaha ruuxa nolosha la wadaagaya. laakiin hadda waxaa weli jira sifooyin dhowra oo ay dumarka badankood ka siman yihiin nacaybka ay u qabaan kana duceystaan inaanu yeelan ninka ay nolosha la wadaagaan. tilmaamahaasi kuwooda ugu muhiimsan oo shan ayaan maanta usoo gudbinaynaa daawadayaasheenna, waxaana ay kala yihiin bakhaylnimada waa qodobka koobaad. bakhaylnimadu waa laba nooc, mid la taaban karo iyo mid aan la taaban karin. ta la taaban kara ayaan ku horeynaynaaye waa ninka oo lacagta iyo dhaqaalaha uu nolosha iyo baraaraha qoyskiisa ku bixinayo ee aada ugu yaryihiin inta ku filan xilli uu isaguna hayo dhaqaale intaasi ka badan inta uu bixinayo in ka badan. bakhaylnimada labaadna waa ninka oo xaaskiisa kala bakhayla shucuurta kalgacalka iyo ereyada jacaylka iyo naxariista muujinaya. labadani arrimood waxay gabadha ku keenaan niyadjab iyo inay nacdo ninka iyo xitaa nolosha qoysnimadeeda. talabaad ama qodobka labaad waa carada badan ama xanaaqa joogtada ah. dabeecad ahaan gabadhu waxay inta badan dulqaad u yeelataa mowqifyo badan oo qallafsan oo ay ninka kala kulanto, laakiin waa inta uu isagu yahay ruux marka aanu caraysnayn dabiici ah la fahmi karo qaladaadkiisa xilliga caradana si toos ama si dadban u sixi kara. caadi ahaan waa la ogyahay in caradu sideedaba ay ninka indha tirto oo ay ka qaado garowshiyaha in uu xaqiiqda dul istaago waxay ku keentaa inuu qaato go-aamo aanu ku fikirin iyo inuu cadaaladda ka fogaado. sidaa awgeed carada badani waxa ay dishaa qalbiga gabadha waxaanay horseedaa burburka qoyska. kadib marka aakhirka uu dulqaadka gabadha ka dhammaado kala tag ayaa yimaada. ceebaha kale ee caradu sideedaba ay leedahay waxaa ka mid ah in dadka kale ay fursad u siiso in ay soo dhex galaan nolosha qoyska oo markay isfahmi waayaan khilaafkooda iyo murankooda dibadda usoo baxo oo ay ku maramarsoodaan in ay dhexdhexaadinayaan dadyooga kale. laakiin waa la ogyahay in soo dhexgalka gacanta saddexaad ay bilow u tahay khilaaf dhab ah oo aan dhayal u bogsan. qodobka saddexaad waa canaadnimada amaba madax adeega waxay soomaalidu u taqaano. ma jiro ra'yi kama dambeys oo aan dabadii la hadlin. ma jiro qof ku andacoon kara in aragtidiisu ay tahay tii ugu saxneed marka loo eego kuwa kasoo horjeeda. sidaa awgeed markasta waxay qurux badan tahay ama quruxda wada noolaashaha iyo isfahanka ay ku jiraan in la dhegeysto ra'yiga kala duwan lana tixgeliyo. qofkuna inta aanu ra'yigiisa ku go-aan qaadan in uu dhegeysto fikirka kasoo horjeeda. intaasi wixii kasoo hara waa madax adeeg iyo canaadnimo, waana cudur dadka kala fogeeya. marka ay lamaanaha isqaban noqotona xanaaqa ama madax adeega aan idhaahde waa cadowga qoyskooda si sahlan u burburin kara, waayo midkood kan kale kuma wadi karo in badan. caadi ahaan waxaa la ogyahay in marka ay qoyska dhexdiisa noqoto canaadnimadu amaba dagaalka madax adeega joogtada ay ku badan tahay ninka. qodobkeena saddexaad waa quruxda oo la danayn waayo. gabadhu dabeecad ahaan waxay u dhalatay qurux, waxaa ku beeran ruux ah in ay markasta muuqaalkeeda ay qurxiso. haddaba labiskeedu xaraga ahaan haddii uu noqon lahaa labiskeeda iyo jir ahaanba gabadhu sare ay u qaadaa. baaritaan dhinaca bulshada ah oo la sameeyey ayaa xaqiijiyey in gabadhu aanay quruxdaasi nafteeda oo keliya la jecleen, balse ay sidoo kale la jeceshahay saygeeda ama ninka ay nolosha wadaagayaan oo ay ka hesho inuu noqdo mid xarago badan, muuqaalkiisa quruxda badan yahay mid aada u wanaagsan. haddii kale waxa ay karaahisataa in ay raacdo nin aan dan ka lahayn quruxda naftiisa. ugu yaraan culays iyo dhib ayaa arrintan ay ku keentaa gabadha ama ay dareentaa in lagu arko. qodobkeena afaraad waa shakiga. sida la wada ogyahay shakiga ama hinaasuhu waa cudur inta badan lamaanaha aada u kala geeya burburkoodana qaybka ah. hinaasuhu waa shucuur aadanimo oo ay suurtagal tahay in loo helo marmarsiyo iyo cudurdaar loogu dulqaadan karo. hase aatee waxyaabaha dadka qaar ay u yaqaanaan inuu yahay lex jeclo ruuxa ka gashay ruuxa kale oo jacayl uu muujinaya, laakiin waxay dad badani ku qaldaan shakiga inuu ruuxa u tuhmayo inuu ruuxani ay qoyska wada leeyihiin xiriiro kale oo xaaraan oo ku lug leeyahay. ninka shakiga badani nolosha gabadha cadaab ayuu u bedelaa,
waxa uu kula xisaabtamaa, waxa uu arkaya iyo waxaanu arkayninba, waxa uu garanaya iyo waxaanu garanayninba. haddii ay gabadhu bilowga hore ee qoyskeeda ninkeeda ugu adeegsato shakiga, waxa uu jaceylka oo weli xoogan iyo dulqaadka dumarka lagu yaqaano bilowga hore ee dhismaha qoyska, iyada oo jecel in ay badbaadiso guurkeeda iyo nolosha qoysnimadeeda iyo mustaqbalka ubadkeeda. laakiin in badan dulqaadkaasi ma sii socdo. aakhiranna waxa ay gaadhaa in nafteeda uga baqdo ninka oo ay qaadato go-aan kala fogaansho ah. ninka waa inuu marka hore naftiisa uu kalsooni buuxda ku qabo oo uu ku kalsoonaado, xaqiijiyo in awood u leeyahay in xaaskiisa uu kaga filnaado baahida ninka kale dhinaca kaste haddii ay noqon lahayd. haddii aanu taasi hubin, waxba yaanu shakin, marka horeba ha ka fikiro inuu naftiisa galdalooladaasi soo buuxiyo, haddii kale uu gabadha fasaxo. sida awgeed daawada ugu fiican ee shakigu waa inuu ninka marka horeba uu isagu noqdo, amaba uu kalsoonida naftiisa uu sare u qaado oo uu aada u qiimeeyo. intaa ayaynu kusoo gebagabeynaynaa qodobkeenna maanta. muuqaalkayaga aan ku eegeynay 5 dabeecadood ee gabadhu ay ku nici karto ninka xidhiirka kala dhexeeyo ama hasaabaha uu kala dhexeeyo ama ha noqdo saygeeda. asxaabay, muuqaalkayaga haddii aad ka bogateen oo aad ka hesheen muuqaalkan iyo muuqaalo kale ayaan idinla wadaagi doonaaye, marka hore waxaad nagu deeqdaan oon idinka codsanaynaa min fadlika in aad subscribe inoo saartaan channelkan Bello Media si aan usoo laba jabaarno muuqaalada halkan aan kusoo gudbino. aad baan idinkaga mahad celinayna.